niman gaar ii ahayn aniga gaar ii ahayn markii hore waxaan moodayay niman gaar ii ahayn aniga gaar ii ahayn marka waa gaar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن أخيارت قالقا مركلا يسكسون نقاشة حسالية ولكن هالأبور عوي بلويد لي بالشانل كسبسكرايب تلا دعا ومعنا دي بي صوياقتي وتصوياقتي وتكون ماساتين ساد مركز تادي قرب تاقتي هاريراها يوحب بوحينا وكل قاع الكيني يوم محبدينا صومالين نكرد الشيء تمي عدلوك دعايا وهي هاي صومالي محمد إتا كدب وحاينا وذا فنانة ديني رسمي رايس أو باي باي أسي سمايسي معنا كوين تاشا heesna ka qaaday aad u qurux badan bal xafladaas iyo heesta ka qaaday walaasheen iyo habka loogu sameeyay bye-bye-da Queen Taasha ana leeyahay bye-bye Queenay ayaan doonayaa inaan isla wada eegno reaction ka wada bixino bal marka ila daawada jacaylka anoo godleeye jaaskeeda inta way tara lagu yaqaan rasmi rays gacanta hayr muddo inta qaano jacaylka anoo godleeye waayay godol ha soo godlada calaashan godladu waxa weeye marka uu hashu ay gaagaxday dadna la yara sabaalaynaysi u soo godlato dadna loo liso anoo gurigiisa joogo anoo garabkiisa taagan anoo ku gardaashihiiso meesha dad badan baa ka buuxa macna aad baa loo soo buuxiyay habeen weeye balse haddana meesha iftiinka iyo lightka ka baxaya xad mudda maalin cad Nairobi oo ku wata Soomaali baa shidatay meesha laakiin saa u nuuraysa way wata Soomaali Maxamed jacaylka anoo godleeye anoo gurigiisa joogo anoo garabkiisa taagan anoo ku gardaashihiiso adaa u garaabi waayay anoo gocan caashaqaaga xiriirkii adaaba gooyay macna anigu ku gargaadinayo oo ku haya oo ku dhowraya anaaba xiriirkii gooyay heesta qaar waxay moodayaan inay cusub tahay laakiin heesta mar hore ay qaaday waqti hore aanay qaaday ma aha wax hadda ay soo qaaday ama cidimka ula jeeda ma aha heestan sanad ka hor meelaha ilaa 2 sano ka hor ay soo qaaday jecelahay aad ku dhawaada marka heestan dib bay uga qaaday mar kale masrixi iyo bye-bye-di Queen Taasha loo sameeyay sidoo kale namal speed baa gacanta kaga jabsan rasmi rays loo dul qaato anoo xisiisa gooyay way tan kula jooga gacanta aan ka yar xidhilaan yar waayahay oo ku wata adaa u garaabi waayay anoo gocan caashaqaaga xiriirkii adaaba gooyay adaa ii garaabi waayay anoo gocan ba caashaqaaga oon kaaba gocan ku dhibsanba xiriirkii baa adaaba gooyay kam ahey ha socoto marka habka ay u jilayso habka ay u qaadayso habkii masraxiyadii u ruuxday macnaha heestay la wada haystaan action kidna way la wada raacayaan oo mid walba dhinaciisa ayuu ka jiibinayaa kullay heesaha forjada ahna dadkeenu aad bay iskaga jecel yihiin haday rag tahay iyo haday dumar tahayba haday rag tahay macal dumarku aad bay u isticmaalaan raguna sidoo kale haday dumar tahayna rag iyo dumarba waa la wada isticmaalaa marka heesaha forjada ahi waa heesaha creative la wada leeyahay ee qof kasta marxalad marka uu ku jiro uu soo qabsado heesta forjada ay marka ku haboon marka dhalinyarada hareeraha ka taagan oo dhani aad bay u wada jibisan rag iyo dumarba marka heesaha forjada waa heesaha la wada leeyahay rag iyo dumarba ruuxi karta ay ku socono waxaad tahay laba godleeye niman gaari ahayn anigu gaari ahayn sidee isu guursanaa niman gaari ahayn aniga gaar ii ahayn markii hore waxaan moodayay niman gaari ii ahayn aniga gaari ii ahayn marka waa gaar saas weeye sideen isku guursanaa nolosha ula wadaagi karaa waayahay qaab ciyaareedkadana aad baan la dhacay macnaha waa ka koobiyo doonadaan finaan noqdo marna soo saaran doona waayahay besti eriyada anigu aad baan uga helay iyo habkay u jilayso habkay u qaadayso bye-bye-dana waxa bye-bye loo dhan yahay dhalinyarada meesha isku timi waxay isku jiraan tiktokero youtubero fanaaniin abwaano
iyo shacabkii iyo bulshadii dhinaca taageerayaasha ku kala socday rasmi rays tahay iyo hadii ku intaasho asxaabteedii iyo taageerayaasheedii bay yihiin marka waa laga giijiyay waana laga tumay baan leenahay ay ku socono waxaad tahay laba godleeye niman gaari ahayn horta jiidista toonku waa waxyaabaha fanaaniinta ku kala tagaan niman gaari ahayn aniga gaari ahayn waxyaabaha toonkaas waxaa lagu yaqaanay fanaaniinta hore hadeen dul istaagno fanaaniinta loo jiray magool dhirta xididka saargalo marka wad naga baraajisay baan leenahay macnaha habkii u jiidayso marka heesaa jiidista leehi waa heesaa fanaaniintu badan ay ku daalaan marka way adeegin fanaaniinta laxamada noocaas ah qaata dheer ee la jiidayo aad baa loogu daalaa cidii fanaanada ma garan kartaa anigu gaari ahayn sidee isu guursanaa niman gaari ahayn waxaas oo shacaba iyo waxaas oo bulshada wax iskugu yimaadeen baybaydii ku intaasha hagaasina ku joojinayna muuqaalka waxa la soo galiyay channelka rasmi rays channelkeedii soo galisay isla iyada ka fanaanada isla iyada ka maxay ahaday ka aktarada oo macnaha channelkeena ka mulkiila marka ka soo daawan kartaan muuqaalkaas iyo habka heestaas ay u dhameystirnayd ba sidoo kale waxaan oran karaa reer Nairobi waa dad aad isku jecel qofka ka baxaya ama ka tagaya si qurux badan bay u sii sabootiyaan si qurux badan way u soo sabootiyaan oo way u soo dhaweeyaan waa meel runtii aad iyo aad ugu weyn tahay saaxiibtinimada bulshada iyo dhalinyarada iyo Soomaalinimaduba ay ku weyn tahay dhalinyaro noocaas u badan oo Soomaalinimadu ay ku weyn tahay ayaa jooga waxaanu ka garan karnaa qof kasta oo Nairobi ka tagaya habka ay u sii sabootiyaan waxaanu ka garan karnaa qof kasta oo Nairobi imanaya habka ay soo dhaweeyaan waxaanu ka garan karnaa habka ay markasta isku xiran yihiin fanaan YouTuber TikToker dhamaantoodba oo isku garab istaagaan waxaanu ka garan karnaa habka ay markasta meel uga soo wada muuqdaan inay yihiin dad isjecel oo iska garab muuqda oo isjecel kullu way qurux badan tahay in kasto meel wada joogta inay isjeclaadaan oo runtii ay iska garab istaagaan oo garbaha iyo hareerahaba macnaha ay isqabtaan waan xasuusanaa rasmi rays habkii loogu soo dhaweeyay ayada markii ugu dambeysay ay timi qof ka dambeeyo yimina ma jiro fanaaniin badanna way tageen taa macnaheedana waxaan oran karnaa waa dhalinyaro u heelan markasta soo dhaweynta bulshada ama dhalinyarada kale ee ka maqan dhexdoodana aan waxba kala hagran waa taasna ku bogaadinaya waana mid laga dayan karo oo nolol kale kaga dayda dhammaan YouTuberska kale ee dadka kale meel wada jooga aad bay u adag tahay in YouTuber fanaan TikToker intaas way isku xidhnaadaan oo ay meel ka soo wada jeestaan oo hal madan ay ka soo wada muuqdaan oo fanaan loo kaco oo YouTuber loo kaco oo TikToker loo kaco mid walba loo kaca aad bay u adag tahay runtii bay ka hadalno marka bye baan laftigeygu leeyahay ku intaasha waan lagu kacay annaguna waan ku kacnaa aan ku leenahay soo noqo adoon nabada wassalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatu kunti waxaan wanaagsan baa idin leeyahay oo inoo muuqaalka ku xigan ku kalano iyo walaalkiina idin leeyahay bye